uga bixi karnaa dhibaatada fitnada balaayada nagu habsatay waxaa si wada jira uga qayb qaadan doona haddii alla idmo الشيخ محمد عبد أمل الشيخ أبو العينين الشيخ علي وجيز يا دكتور عبد الولي الشيخ محمد يوسف حاجي محمد حاجي يوسف إن شاء الله تعالى لباتنا نهاية علماء وحكي هاللي لباتن سنة يكبر صومها ولي وأكون حجرنا مالين كدن بستي هربت كدرنا قلنا صومها محاخل در مركا كل أنا وحن ودين لها علماء ذينا سنة كستوا لقى هذا حلقة يمحن كو إرادة قابك لغة بحلا وانا لو الشيقا هذا وان كسي صعنا محاخل در مركا وحنا waxaan isleeyahay kulli culimada yaa ka jawaabi doonta insha Allah ta'ala halka jinsi iyo halka luqad aan ku hadalno iyo halka qoomiyad aan nahay oo aan ku faano mar walba waxaan dhana 100% muslim aan nahay hal luqad aan ku hadalnaa hal qoomiyad aan nahay hal aan nahay hal Soomaha taana dhibaato noo keenta isleeyahay aniga way ficnaan lahayd qoomiyad badan oo luqado badan ku hadasha oo kala degan sida adduunka u nool yihiin kale insha Allah ta'ala waxaan ku wareejinayaa Sheikh Maxamed Umal dhageysi wacan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أيها الإخوة موضوع فتنك يسيد الله قبحا وموضوع رنتي قدوين ونباهن داو لوقع بوضع إن لسكو داره إن لقيحه وملعديه فتنك وحيهين jidkii looga bixi lahaana la tilmaamo laguna celceliyo tilaabada taas raacsan ee aan ka liidanin ba waxay tahay in jidkaas si rasmi ah loo qaado wixii camal loo rogo oo dhaqan loo bedelo waa inaan kaliya noqonanin masaladu nadari theory bas inayna noqonin laakiin wixii la camaliyay hadii barnaamij aad u qurux badan oo daawo ah lagu sheego ase aad jiranta daawadii quruxda badnayd iyo quruxdeedii waxba tari mayso haddii aadan daawada qaadanin marka unbaa biidin ilaahi caafimaadku imaanaya marka in la isku daro arrimahaasay u baahantay culimadan la qaybsan doonaayo qaybtooda uga tegi doonaa laakiin waxaan rabaa inaan tilmaamo fitanku kelimadaasi waa jamc baa la yidhaahdaa mufradkeeduna waa fitna fitnada waxaa la yidhaahdaa asalkeeda waa dahabka in dabka la geliyo si loo kala ogaado oo la shiilo way macna in dahabka dab la geliyo oo la shiilo si uu kala baxo midkiisa xun iyo kiisa fiican fitna la yidhaahdaa camaliyada noocaas shareecadana waxaa la yidhaahdaa fitnada waxaa la yidhaahdaa الابتلاء والاختبار إن أدومدا لا امتحانه ولا ورشديه ولغو امتحانه بالشر والخير
mar imtixaanku wuxuu noqon karaa in khayr la isku imtixaano marna wuxuu noqon karaa in shar la isku imtixaano bilxasanaati wasayi'aat imtixaanka marka rabbi baa qaadaya waa la isku fiirinayaa marka imtixaanka natiijada ka soo baxaysa waa waxay tahay dadka qaarna imtixaankii waa ku daadanaya waa ku dhacayaan wabitaali waxaa la siinayaa shahaado la yidhaahdo cadaab ilaahi iyo cadhadiisa waa arday dhacay dadna imtixaankii waa ku baasayaan markaasaa waxaa la guddoonsiinayaa abaalgud la yidhaahdo ilaahay jannadiisa iyo ridihiisa marka ikhtibaarka iyo imtixaankaasi la marayo ayaa waxaa la yidhaahdaa fitna la yidhahda si gooniya kelimada waxaa loogu isticmaalaa khilaafka iyo isku dhaca iyo qaybsanka muslimiinta dhex mara mujaradu lfurqa qaybsan ay qaybsameen oo iskhilaafeen fitna la yidhahda hadday ka sii gudubto oy gaadho gacanqaad iyo inay islaayaan oo dhiiggii daato markaana way ka sii daran tahayoo waxaa la yidhahdaa istixkaamu lfitna la yidhahda fitnadii oo sii adkaatay wey fitanku marka waa laba qaybood qaybta koowaadi waxa weeyaan waxaa la yidhaahdaa fitan khaasa waa fitna khaasahoo ruux bay khaas ku tahay guri iyo qoys bay khaas ku tahay waa midda xudayfa markuu weydiiyey cumar ee uu ku yidhi yaa haya wixii nebigu fitno ka sheegay ee xudayfu yidhi anaa haya ee uu yidhi innaka la jari war nin dhiiran baad tahay bal sheeg maxay tahay markaasaa wuxuu yidhi ruuxa fitnada uu ku fitnoobayo ehelkiisa iyo reerkiisa iyo xaasaskiisa waxaa asturaysoo lagu dhaafayaa soonka iyo salaada sadaqaadka khayraadkaa lagu dhaafaya markaasaa cumar wuxuu yidhi taa kuma weydiin waxaan ku weydiiyey fitnada tamuuju ka mawji albaxr ka mawji albaxr fitnada guud ee masaa'ibta ah ee sida badda hirkeeda oo kale yacni u socota oo dadka wada gaadhaysa oo ummadda saamaynaysa oo qaybinaysa oo muxuu ah isku dilaysa oo kala kaxaynaysa taa way middaan ku weydiiyey tan khaaska maaha marka midda hore waa khaladaadka uu ruuxu ka galayo noloshiisa ilmihiisiibuu khalad ka galayaa xaasaskiisuu khalad ka galayaa dhaqaalihiisuu khalad ka galayaa naftiisuu khalad ka galayaa taa waa fitan khaasa la yidhahda fitna waa mid caam ahoo waa midda ummadda wada gaadhaysa waay oo dalkeedii saamaynaysa amnigeedii iyo nabadgelyadeeda saamaynaysa nolosheedii saamaynaysa ee taa waxaa la yidhahdaa waa fitna caama inta badanna haddii fitna la itlaaqo taasay ku dhacdaa waa midda guud ee ummadda wada gaadhaysa waa tan ina haysato wey ee ina saamaysay ee dhibka badan inoo geysatay qodobkaa inta haddaan kaga gudbo waxaa iyadana xusid mudan iyo inaan tilmaano fitanka oo muslimiinta dhexdooda inay qaybsamayaan oo haddana islaynayaan waa wax ilaahay tabaaraka wa tacaala uu qoray waxaa la yidhahdaa waa xatmi waa shay aan la baajin karin waay ilaahay baa qoray bixikmatin baaliqa xikmad xeel dheer buu ilaahay ka leeyahay laakiin ummadda nebigu sal alla alay wasalam inay islayn doonto wax qoran waayo nebigeenna sal alla alay wasalam 3 arrimood buu rabbigii ka codsaday oo weydiistay ummaddan inuusan cadow ka xoog badan ku sallidin oo iyadoo dhan wada qabsada waa laga yeelay cadaab ama hoos ka yimaado ama kor kaga yimaado iyadoo dhan wada saameeyo wada baabi'iya waa laga aqbalay ayada dhexdeeda inuusan ilaahay balaayo dhigin oo isku dirin taa waa laga diiday waxaa la yidhi ilaahay qadihiisu wuxuu ku tegay ama ku dureersaday inay ummaddani islayn doonto
saas daraaddeed taa lagaama aqbalin baa layidhi marka waxaa la yidhaahdaa fitanku waa shay xatmi ah nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wax yar markuu dhintay kadibba saad garanaysaan fitanku waa bilowdeen oo waa kii cumar la dilay cumar markii la dilay baa iriddii fitanku waa furantay bal way jabtay waa kii ku lahaa xudayfa wahaa baan u malaynayaa cumar ku lahaa markuu yidhi fitankaasi iriddoodu waa furmi doonaan wuxuu yidhi fitankaa markuu uga warramay wuxuu yidhi iriddooda ma la jebin doonaa iridda mise waa la furi doonaa may waa la jebin doonaa buu yidhi xudayfaa dhahay cumar markaasuu wuxuu yidhi haddiiba la jebiyo macnaheedu dib loo xidhi maayo waa dilkii cumar bay marka ahayd iridda jabtay cumar mar haddii la dilay fitankii waa bilowdeen cuhmaan radia allahu tacaala canhu wa ardaah waa tii saamaysay oo fitnadaasaa lagu dilay cali bni abi aalibin fitnadaasaa lagu dilay saxaabadii ridwaanullaahi calayhim iyagoo labaduba mujtahidiin ahaayeenoo lilaahi iyo niyad wanaag iyo dadaal ay ka ahayd haddana waa kii wax dhex mareen wahaakadaa maalinkaasay u bilaabatay nebigu wuxuu yihi sal lla alay wasalam axaadiiskiisa ku sugan ilaa qiyaamadu ka dhacaysana istaagi mayso waa sidii seefta loo dhex dhiga wey oo aafadu uga dhex bilaabatay sidaa ha ahaatee haddana nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh ama qur-aanka kariimka iyo sunnaduba waxay tilmaameen arrimo fara badan oo fitanka noocan oo kale ah markay dhacaan wuxuun lagaga daaweyn karo daawo u noqon karo ama jid lagaga bixi karo fitankani lagaga badbaadi karo ama si shaksiya adiga ahaan aad kaga badbaadi karto ama jamaacada ay ku dhacday iyo mujtamaca ay ku dhacday iyo ummadda ay ku dhacday ay kaga badbaadi karaan oo kaga bixi karaan daawooyin fara badan buu nebigu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh qaybo yar baan ka tilmaamayaa qaybta kale culimmadaan u daynayaa waxaa ka mid a maalan nebigu sal alla alay wasalam waxyaaluhuu tilmaamay ama qur-aankuba tilmaamay alla ka cabsiga ummaddu hadday rabbigeed ka baqdo oy xuduuddiisa ilaaliso ilaahay tabaaraka wa tacaala dhibaatada haysata wuu ka saaraa waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhrajan wayarsuqhu min xaysu laa yaxtasib ciddii ilaahay ka baqda ilaahay wuxuu siiyaa sidii iyo qaabkii iyo jidkii uu kaga bixi lahaa dhibaatadii culayska haysta cidhiidhi kasta marka fitanka qaababka looga baxo waxaa ka mida iyo jidadka aad kaga bixi karteed kaga badbaadi karto alla ka cabsiga inaad laasimto waxaa ka mid ah cilmiga shareecada oo nabiga sal alla alay wasalam xadiidkiisa waxaa ka mid ahaa ina min ashraati asaaca saacadda calaamaadkeeda waxaa ka mida an yurfaca alcilmu wayanzilu اljahlu wayakhuru اlharju in cilmiga la qaado waa cilmigii shareecada cilmiga marka la qaadana jahligaa degaya oo ummaddii aqoon daray u badanaysa kadibna waxaa badanaya buu nebigu sal lla alay slam harjigu muxuu yahay baa la yidhi waa qatliga islaynta waay u fiirso muxuu ku yimid marka cilmigii baa la qaaday aqoontii baa yaraatay culimmadii aqoonta lahayd baa dhimatay ummadda inteedii badnayd baa aqoon la-aan ku soo baxday aqoon la-aantaas iyo jahligaasi wuxuu sabab u yahay in dhiigga bilaash lagu daadiyo oo la islaayo la iskhilaafo midnimadii burburto aafa dhalato fitan iyo amni la-aan yimaado wixii ilaahay xaaraameeyey la xalaashado marka cilmiga iyo aqoonta diintu waxay ka mid tahay waxyaalaha taxsiinaadka ah oo ummaddan ilaahay uu kaga xifdiyo fitanka hadday dhacdana ay kaga badbaadi karto waxaa ka mid ah waxyaalaha nebigu tilmaamay sal alla alay wasalam markay fitanku dhacaan lagaga badbaadi karo waxaa ka mid ah inuu ruuxu cibaadada ilaahay isku mashquuliyo salaadii iyo soonkii iyo sadaqaadkii iyo xajkii iyo dacwadii faafintii diinta khayraadka inuu ruuxu isku mashquuliyo oo jaanisba isu diido uu fitan kaga qayb galo saas daraaddeed baa nabigeena wuxu uhi sal lla alay slam xadiidka fii saxiixi muslim
alcibaadatu fi lharji ka hijratin ilaya buu nabi sal lla alay wasalam xilliga laysleynayo oo muslimiintu isku ibtilaysan tahay qabiil qabiil deegaan deegaan koox koox xilligaasi cibaadada la cibaadaysto waxay la mid tahay buu yidhi sidii hijro aniga la iisoo hijrooday oo kale maanta waxaad ugu jeclaan lahayd waxaad hesho inaad nebi maxamed oo magaalada madiine jooga aada meeshaa ugu tagtood la noolaato soo saas ma ood ardada nebi maxamed ka mid noqoto wuxuu leeyahay in aniga la iisoo hijroodo madiine la iigu yimaado waxaa la ajir ah xilliga fitanku taagan yihiin inuu ruuxu cibaadada ilaahay isku mashquuliyo oo iyadaasi uu dadaalkiisa iyo juhdigiisa iyo waqtigiisa iyo geliyo waxyaalaha kalena kaga mashquulo waxaa ka mida maalan in uu ruuxu xilliga fitanku ay jiraan in uu ruuxu aadamaha markuu la mucaamaloonayo dadka walaalihii ah uu kula mucaamaloodo wax la yidhaahdo al-insaaf cadaalad naftiisa inuu cadaalad ka sameeyo laanna fitanka waxa keena waa cadaalad darrada fitanka waxa keena waa dulmiga fitanka waxa dhaliya waa xadgudubka iyo baqiga sidaas daraaddeed haddaad khalqiga insaaf u samayso ood adigoo kale ka soo qaado wax badan baa fududaanaya wuxuu nabigeenu yidhi sal alla alay wasalam kamaa fii saxiixi muslim markuu tilmaamay fitanka isdaba yaalle ee midba midda ka dambaysa ay ka sii culus tahay kala daran markuu nabigu tilmaamay sal alla alay wasalam wuxuu yidhi faman axaba an yuzaxzaxa cani innaar wayudkhala aljannata falta'tihi maniyatuhu wahuwa yu'minu biاllahi walyowmi alaakhir walyaأti ila annaasi maa yuxibu an yu'ta ilayh laba qodob ku dheg haddaad rabto in naar lagaa fogeeyo jannana aada gasho laba qodob qabso geeridu ha kuu timaado adigoo allah iyo maalinta aakharo rumaysan oo mabaadida waaweynee diinta ayaan lagaa leexinin kow qodobka labaad dadka ha ula yimaado ruuxu waxa uu jecel yahay in isaga loola yimaado war maxaad jeceshaha in lagugula dhaqmo soo cadaalad ma jecli oo wanaagga ma jecli oo dulmiga ma necbid waxaad rabto inay dadku kugula dhaqmaan ayagana kula dhaqan waxayna dadku jeclayn in lagula dhaqmana ka daa anugu waxaan isleeyahay qaacidadaa haddaan qaadan lahayn mashaakil fara badan oo maanta ina haysato tilqaa'iyan bayba u furfurmi lahayd waaba daaweysmi lahayd leanna maxaa isku keen haya dhibka ina haystaayo waxa weeyaan nin walba sadbursi buu doonaya soo ma kan kaluuna wax u ogolayn xasad baa la ysku hayaa dulmi in laysdulmiyaa la doonaya haddaad miisaanka naftaada aada saarayso aada dadka walaalaha a saari lahayd oo qabiilkan miisaankaad qabiilkaaga saarayso ka kale aada saari lahayd oo miisaanka kooxdaada aada saarayso aad tan kalena saari lahayd wax badan baa fududaan lahaa macnahaasuu nabigeenu tilmaamayaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh daawooyinka rasuulku tilmaamay bay ka mid tahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh insaafka iyo cadaaladda in lagu dadaalo waxaa ka mid ah inaad noqoto dhowr nin midkood inaad noqoto kow ruuxu waxaa jira iyo dhibaatada jirta wax ka qaban kara wuxuun baasanti mucayana nisbo mucayanaad ka khafiifin kartaa dhibka jira cilmi iyo caqli iyo waxtar iyo cadaalad waxbaad qaban kartaa haddaad wax qaban karto waxaad qaban karta qabo islaaxi waxaad islaaxin karta haddaadan dhibaatada taagan waxba ka qaban karaynin markaasi dhibka ha kordhinine fa calayka bikhuwaysati nafsika danahaaga khaaska laazim ya fa calayka bikhuwaysati nafsika soo dan khaasa ma lihi ilmahaaga iyo reerkaaga iyo ganacsigaaga ku mashquul bas watruk amra alcaama danahaa guudnay balaayadu ka taagan tahayna isaga tag waxba haddaadan qaban karin leesh leanna waxa ugu yaray loo baahan yahay wax weeyaan inaadan dhibkan socda iyo dabkan holcaya inaadan dhuxul ku biirinin ama aadan qori ku biirinin inaad wax ka dhinto iyo inaad ka fogaato labadaa wax ka dhexeeya ma laha laakiin haddaad dhex orodo hadda markaasi waad balaayo maad sii aafaysa
waxaa ka mid ah fitanku meelaha ay ka dhacayaan ruuxa sidoo waxba qaban karin inuu ka cararo waa ka nabigu yidhi sal alla alay wasalam markay fitanku dhacaan war ninkii geel lahow geelaaga aad oo ninkii muxuu ahaaye adhi lahow adhigaaga aad oo ninkii beer lahow beertaada aad oo meesha balaayadu ka socoto ka carar haddaadan intaa midna lahaynna ka warran baa layidhi nabigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam intuu hubkiisa burburiyo jajabiyo ha cararo markaa ha fakado meelun ha u fakado leesh leanna meesha balaayadu ka dhacaysa haddaad taagan tahay inta badan dambaaburadeeda waxunbaa ku soo gaadhay si unbay uun kuu saamaynaysa waa xuluushii nabigu bixiyey bay ka mid tahay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka asbaab fara badan ayaa macnaha shareecadu sheegtay waxaa ka mid a islaaxu daati lbayn oo masaladii aan xalay ka hadlaynay in dadka yacni dad muslixiina oo heshiisiiya oo isu soo dhoweeya balaayada baabi'iya sharka ka hortaga laanna nabigu wuxuu sheegay sal alla alay wasalam dadku waa laba nin khayrkuu furaa sharkana waa xidhaa ninna sharkuu furaa khayrkana waa xidhaa adiga labadaa kee tahay mid furo u abaa jira wixii shar una balaayuu u taagan yahay balaayuu furaa khayr markuu yimaadana wuu qufulaa ninna waa cagsi oo khayraadkuu furaa shar markuu yimaadana waa qufulkii sharka waa wuxuu nabigu yuri sal alla alay wasalam waxaad noqotaan kuwa khayrkana ummadda u fura sharkana ka xidha marka inaad khayrka u sacyido oo wanaagga loo sacyiyo oo ummaddii laysu keeno quluubtoodii laysu soo jiido yacni cudurkan la daaweeyo ee boogtan la dhayo ee dadkii laisjeclaysiiyo in barnaamijkaasi laga shaqeeyo ayadana wax weeyaan waa tii nebigu meelo badan ku tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh mawduuca marka maadaama hala qaybsado la yidhi waqtiguna iska yaryahay inahaas baan ku koobaya qodobo kaloo fara badan baa jira laakiin culimmadaan u daynayaa fitanka iyo aafadayna haysata see looga baxaa qodobadaasi qaybo ka mida weeye inta kalena culimmada ayaan uga baxaya jazakum allahu khayr wassalaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد موضوع وموضوع بلاران شيخنا إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى خير السيو رنتي ملخص في عن يكسو أروريي وسيدا وكل كور في تنتا أقاحي مد فردئة يمد عامة هذه الشريعة سيدا أغلب كمد عام كهذا شاء kadibna makhrajkeedii iyo xuluusheedii inaha uun sheegay waxaan ku dari lahaa anigu oo makhrajka fitanka looga bixi karo mid caama markay dhacdo oo la isqabto waa khilaaf iyo wixii la midka tanaasul inuu jiro maartay min ixda tarafayn oo waa lis hayaa wax baa la isku qabtay waynay jirtaa danayn oo labada dhinac mid kamida ay daneeyaan iyagoo masaalixda caamka ilaana inuu tanaasulo oo waxa uu ku dhaganaa ama jaanibkii u taagnaa inuu ka tanaasulo say u badbaado waxaa lena sheekhu markuu waxdada ka hadlayay uu kusoo qaadan jiray xasan maaragtay binu cali radi allahu tacaala canh aabihii markii la dilay cali bin abi daalib asagaa khilaafadii lagu soo wareejiyey kadibna muddo 6 bilooda ayuu hayay khilaafkiina sidiiba u socday kadibna mucaawiya ayaa wuxuu ku yidhi aniga ayaa kaaga tanaasulahaya laakiin bishardi dhiig dambe oo muslima waa inuu sadaadanin buuri sidiiba markaa lagu hagashiyey sidiiba marka xasan bin cali markuu tanaasulay mucaawiya ayaa lala muwaayacooday sidiiba markaa amiir almu'miniin ku noqday idan halkiibuu dhiigga ku istaagay fitankiina halkiibuu ku qaboobay rasuulkeenana calayhi salaatu wasalaam waa kii sheegay ina ibnii hada sayidun uu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa sayid weeyaan ilahayna subxaanahu wa tacaala laba fi oo cadiim oo waaweyn ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala iyuu sabab ooga dhigi doonaa islaaxooda iyo wanaagooda idan waa inuu tanaasul jiro oo qofku uusan iskaga dhihin meeshuu ku qabsaday imaa in la wada waayo waa imaa inaan helo waa inuusan dhihin tanaasulka waa inuu jiro waana shay usus oo markaa asal oo sharci ah isagoo qofkii markaa arrintaasay u badbaado ama ummadday u badbaado markaa maaragtay fiirinayo ثانيا waxaa kale oo makhrajka fitanka waxyaabaha laga bixi karaa aliltifaafu xawla alculamaa inuu markay fitanku iyo dhibaatadu ay timaado inay culimada loo yimaado oon laga cararin yani culimadu waa kuwa haya makhrajka ee dadka tawjiihinaya ee fitanku dadka caqliga tirtaa qofkii caaqilka waxay ka dhigi doqon bay ka dhigaysa
kii caalimkaana cilmigii bay gara marinaysaa yani fitanku markay timaado qofkii hataa waxgarad ma noqonayo leanna maarata la haleeshiin maayo walidaalika saa darteed baa ninkii la dhihi jiray maxamed bin cabdiraxman ashcad miyuu ahaa mase cabdiraxman bin ashcad iyo xajaaj oo markaa maarata hayay ka ah gobernatoore ka ah dhulka ciraaq iyo xaggaas yaa isku dhaceen ciidan buu u dhiibay turkiya iyo xaggaas inuu maaragtay ibn ashcad inuu u kaco oo xaggaa duulaan uu ku qaado ayuu ugu talagalay ilaa 120,000 oo ciidan buu u dhiibay oo qayb dhan ay yihiin rag wada xufaada oo maarata ahlul qur'aan ay ku jireen raggii markii uu sida ku baxayo turkiga iyo meelo badan uu maarata dhexda u marayo ayaa barafkii iyo wixii qabtay waraaq soo diray asagii xajaajna xoogaa xurguf baa u dhaxaysay asagii markaa waraaq buu soo diray oo intuusa waraaqda soo diray raggii la socday culimadii buu la tashaday wuxuu yihi baraf adag iyo culays baa na saaran ma sii socon karra maxaa tala waxay dhahen halkan aan ku joojino jihaadka iyo futuuxaadka intaanu soo marrayna aan dib u hagaajino intuu barafka naga kaxayo barafka markuu dhammaadana aanu markaa jihaadka sii wadno go-aanka markii qaateen buu waraaq soo diray xajaaj buu usoo diray wuxuu yidhi futuuxaadkii halkaasaan ku istaajinay baraf baana qabtay iyo culays badan baanu dhaafi laanahay waxaanu go-aan ku qaadanay markaan ahl cilmigii la shuuraystay inaan halkaa ku istaagno wixii magaalooyin oon soo qabanayna aan dib u hagaajino maamul u hagaajino hadhow markuu barafku naga fududaadana aan futuuxaadka sida usii wadno xajaaj markii horeba xoogaa xurguf baa ka dhexaysay wuxuu usoo qoray weligay waan ku tuhunsanaa buy inaad fulay tahay oo meel dheer aada gaadhaynin baan weligay kugu tuhunsanaa buy marka saas darteed xoolihii aan kugu bixiyey iyo dhaqaalihii miisaaniyaddii cuslayd aan ku siiyey maaragtay waa iga khasaartay buu ku yidhi ibnu ashcad markuu arrintii maqlay waraaqdii xajaaj u timid wuu xanaaqay kor buu u booday marka wuxuu yihi war intaanu meel kale u soconay mujrimkan maa ummadda aan ka zuulino isagoo maaragtay dhibaatadan arka hayay miyo haddana annaga waxaas nala waxaynayaa barti baa markaa horta baycadii kula jireen iyo maamulkiisii bay maarata ku gacan saydheen 120,000 ciidan ee gaaladii loo diray buu dib asaga ugu soo jeediyey isaguu dib ugu soo jeediyey dagaal buu bilaabay haddee dagaal aan laga sheekayn karin oo runtii khasaare badan dhacay akhiiran ibnu ashcad isagii baa maaragtay muxuu iska soo tuuray guri buu iska soo tuuray xajaaj baa jebiyey waxaan ooga jeedaa marka rag culimo aha oo taabiciin aha oo cilmi badan lahaabaa arrintii ku kadsoomay oo galay ibnu ashcad la saftay waxaan ooga jeedaa marka fitanku markay timaado qofku inuu xataa caqliga uu waayi cilmina haddii uu leeyahay in cilmiga ay gara marsiinayso waxaa ku jiray marka raggaas nin la dhihi jira caalim ahaa maarata sharaxbil ashacbi la dhihi jira ayaa ku jiray oo arrintaa ay qabsatay oo maaratay raggii maaratay arrintaa ay wax ka saabatay buu ka mid ahaa xajaaj markuu wixii o dhan baabi'iyey iclaam buu bixiyey wuxuu yihi qofka meel heble iska dhiiba ama meel heble iska dhiiba ama ani i yimaada waa la cafin inta kale laakiin waxaa weeyaan qofkii isdhiibi waaye hilfaha loo qaaday marka sharaxbil ashacbi meel buu tegey kadib xajaaj maxaa loo keenay xajaaj baa loo keenay wuuna jecel caamir baan rabaa caamir sharaxbil ashacbi marka wuxuu sameeyey marka xajaaj loo keenay wuu jeclaa nin faqiih oo caqli badanna u ah caamirow maxaa kugu dhacay nin caqli badan baad ahayd oo hadda nin caqli ka hooseeyey kugumaan haysanin cilmina waad lahayd bui markaasaa wuxuu yidhi asaabatnaa fitna buuri fitan baana asiibtay lam nakun barara maaratay baariyiin iska ilaaliyana maana noqonin walam nakun fajara aqwiyaa faajiriin xoog badanoo durba ka takhallusana maana noqonin daxiyaan u noqonay bui markaa yani halka waxaan uga wadaa ashcad wuxuu iftiimiyey fitan baa nagu dhacdo waxgaradkii iyo cilmigii oo dhanba marka waa naseejisay yani qofku markuu caamir ahaa caamir markaa waxaa weeyaan fitankaas markii qofku ku dhacdo uu caqligii wax o dhan bay ka tegi marka waxaa weeyaan aliltifaaf xawla alculamaa oo waxyaabaha lagaga badbaadi ka mid tahay nabiga calayh isalaatu wasalaam meeqa jeer bay yuhuuddu ay fitan ay isku dayaan inay kiciyaan mar kastaba nabiga ayaa deminhayay oo saxaabadu hareeraha ayay ka ahaayeen oo maaragtay rasuulkii hareeraha ka joogeen markaasay waxay samaynhayeen markii allaali markii fitanku timaadaba rasuulkaa qabanayo oo baktiinhayay taas waxaa weeya idna waa asbaabaha fitanka lagaga bixi karo asbaabaha fitanka lagaga bixi karo waxaa kale oo asbaabaha fitanka lagaga bixi kara ah inuu qofku taariikhda u akriyo yani ummadihii hore ama la imtixaamay qaar ku guulaystay oo imtixaamkii ku guulaystay oo fitankii ka badbaaday oo xal iyo makhraj u helay iyo qaar aan u helin oo ku khasaaray bay noqdeen inuu qofku dib u akriyo ummadihii ka badbaaday wayga ooga badbaadeen for example hadda ree ansaar oo kale aws iyo khasraj fitankii dhexdooda ooli jiray ee dagaalkii faraha badnaa qaabkii ooga baxeen walaaltinimo iyo islaamkii iyo baa ooga baxeen inuu qofku dib taariikhda oo u akriyo oo waxyaabaha fiican ee looga baxay fitankii inuu qofku markaa intuu dib u daraaseeyo waygii uu qabsaday iyo waddadii ay dadkii fiicnaa fitanka ooga badbaadeen ka mid weeye inuu qofku uu qaabkaa u sameeyo wey waxaa ka mid ah asbaabaha
ducada inuu ilaahay subxaana wa tacaala qofka baryo oo ilaahay subxaana wa tacaala fitankan iyo dhibaatadan makhraj sahlan inuu ilaahay subxaana wa tacaala keeno oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ka badbaadiyo inuu qofku ilaahay subxaana wa tacaala bedelku xooggiisa ictimaadi lahaa inuu ilaahay gacmaha u horsado oo maaragtay ilaahay uu baryo oo ilaahuna badbaadi oo maaragtay ilaahay subxaana wa tacaala uu makhraj iyo faraj uu alla weydiiyo subxaana wa tacaala idan marka way fara badan yihiin culimada kale aan ku wareejinayaa inahaasaan aniguna ku mudakhalaynayaa ilahina subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu maaragtay fitanka iyo fasaadka iyo dhibaatada ilahay subxaana wa tacaala naga badbaadiyo maaragtay wabaaraka allahu fiikum ay fadal sheekh بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد runtii labadii sheekho naga horeysay ayaa si wanaagsan oo aad u bayaansan u dhigdhigtay fidnada iyo sida looga bixi karo waxa kaliya oo aan ku daraayana waxa waaye inta uun hadyiga salafka markii la akhriyo la fiirfiiriyo kasoo dhex baxaysa waa saddex qodob oo iyaguna aad u muhiima oo wax lagu cilaaji jiray ama lagu daawey jiray ilaa waqtigan la joogo ilaa yowm alqiyaamana daawo uun u taagan ummadda muslimiinta noqonaysa midda koobaad waxa waaye waxaa laga maarmaana fitan iyo dagaallo ahliya ama kuwa daakhiliya hadday dhacaan magacay rabaan ha wataano magac diineed ha wataano sida inta badan fidnooyinka salafu saalix xilligiisa saxaabadii iyo taabiciinta dhacay inta badan waxay wateen magac diineed laakiin saddex arrimood oo asaas u ahay markii siirada la akhriyo iyo taariikhda midda koobaad waxay ahaaday mu'aamaraad dibadda laga soo dhisaayey oo inta badan qabaa'il iyo qowmiyaad iyo dowlado jabay oo islaamku uu dardaray oo liqay oo uu zuuliyey mulkigoodii ayaa waxay mar kasta diyaarinayeen ummaddan islaamka oo carabtu ay hoggaaminayso xisaab adag inay la galaan oo ay isku dayaan inay ka aargoostaan oo ay fidno daakhiliya iyo dagaallo daakhiliya ay ka sameeyaan waxa ugu horreeyo sida hadda sheekh maxamed uu sheegayay albaabkii fidnada lagu jebiyey ama albaabkii fidnadu ka soo gashay oo la jebiyey laga bilaabana wuxuu ahay dilkii sayd cumar radi allahu canhu wa ardaah waxaana la ogyahay sayd cumar nin majuusiya inuu dilay oo xadaad ahay ninkaasna inuusan iska ahayn arrin iska timid si dabiiciyahe mu'aamaro muddo laga shaqaynayey oo nimankii ahaa farisiyiinta oo majuusta ahaa oo ciil badan u qabeen sayd cumar burburintii islaamka uu burburiyey yacni mamlakadoodii iyo carshigoodii kisra ciil u qabeen ayaa soo abaabulay barnaamijkaas arrintaasna waxay ka qaadanayeen culammada islaamku mar kastaba fidnooyinka qayb ka mid a ama qaybaha ugu khatarsan inay ka mid tahay faragelin cadowga dibadda ah uu ku soo sameeyo dowladda islaamka iyo mujtamacaadka muslimka si uu zaczaco iyo maaragtay dhibaato uu gudaha uga sameeyo waana midda hadda annagana haysata qaybtaas waa midda soomaaliya maanta haysata oo aad looga shaqaynaayo iyagoo magaco kala duwan loo bixinayo in awoodda soomaaliyeed dad isku wada diina oo isku wada degaana oo isku wada madab ah oo isku wada jinsi ah oo isku wada luqad ah oo dhinac diinta ka midaysan in aan loo ogolayn inay oo dhul barwaaqaad degan oo meel istaraatiijiya ku yaalla oo aad u dagaal badan oo geesiyaal ah inaan marna loo ogolayn in kayaan awood leh oo xoog leh u taagnaado u dhisnaado dowladdii soomaaliyeed oo dhexe ee 90kii baxdayna iyadoo gacmihii soomaaliyeed lagu dumiyey waxaa lagu dumiyey mu'aamaradaas khaarijiga oo dibadda laga soo diyaariyey waad ogtihiinoo makay madiine lagama soo abaabulin wixii lagu dumiyey roma iyo london iyo washington iyo addis ababa laga soo diyaarinayo arrin macruufa waaye arrin qarsoon ma aha waana fahmi karnaa meelahaas waxaa ka imaanaya inta ay la eg yihiin iyo wax isay u yaaliin iyo waxay xambaarsan yihiin marka barnaamijka ugu weyn ee fitanta albaabada ay ka soo gasho fitnadii ugu horeysana islaamka laga soo geliyey nin la yidhaahdo maarata cabdullahi ibnu sabana iyo majuusigaas iyo qaabab kala duwan loo adeegsaday xilligii sayd cumar iyo xilligii sayd cusmaan labadaba wuxuu ahaa tadakhul khaariji ah iyo tarabus xaaqid ah iyo maaragtay cadownimo loo diyaarinayo ummaddaas islaamka in gudaha laga dumiyo laakiin waxaa la adeegsanayaa caadifo kastoo la adeegsan karo tii ikhtiyaalkii sayd cumar lagu sameeyey wuxuu ahay cudwaan iska xaaqid oo waadixa isagoo aan shaati diineed loo gelin laakiin sayd cusmaan waxaa lagu dilay mid nasiixa iyo diin iyo islaax hugsan laakiin isaguna ah mu'aamaro khaarijiya oo loogu talagalay in dowladda islaamka lagu dumiyo taa marka waxay ka mid tahay iyaduna asbaabaha
iyo albaabada fitnadu ay ka soo gasho annagana maanta waan haysataa Soomaali haddaana albaabada waxaa ka mid ah oo kaleeto albaabkaas ta'wiilka diiniga ah oo si khaldan diin loo fahmo iyo islaax in la sameeyo iyo in macruuf la faro iyo munkar in la reebo iyo dawlad islaamiya aan dhisayna in albaabka laga soo galayo laga dhigto sida hadda qisada oo doctorku sheekh الفاضل oo hadda sheegay Abul Aynayn Dr. Sheekh Abdurrahim oo Ibn al-Ash'ath anagu aan faahfaahinayno ogeedeen muxaadarada xal ku jirtay oo ah Ibn al-Ash'ath qadiyadiisi الدولة الإسلامية aad u galgishay oo dhibaato 2 sano oo xiriir dagaal oo ka socday dad intaas oo boqol oo kunana ay dhibaato ku gaartay culimo badan lagu laayay oo fidnadii dhinac kastaba ay saameysay dadkaas dad waxay ahaayeen quraada iyo Ibn al-Ash'ath laftiisa oo asagu fidnada hogaaminayay dad ahlu diina ahlu iimaana quraanka xufaad ku ah aad u cibaadeysta katiibatul quraan loo bixiyay ibn hajar markuu ka hadlayo wuxuu leeyahay fil fath wuxuu leeyahay sumu quraa li'annahum likathrati qira'atihim fi salati al-layl quraanka sabeenka dhamay salatu al-layl usoo jeedeen waa niman cibaado badan bay ahaayeen laakiin ta'wiilki diiniga ayaa wuxuu la galay baabul fitna la galay markaas iyagoo khayr doonaya ayay fasaadiyeen ummadii dagaal aad xun baa dhacay ayma badan oo al-Hasan al-Basri oo kamid yahay watii loo soo diray wala la mufaawadooday waa diideen dagaalkii doorteen ila aakhirih qisada dheereedo hadana sheekhu oo daraf kamid ah sheegay qaybtaasuna qayb shaati diineed iyo islaax iyo hagaajin dugsan waay waligeedna sheekhu Islaam ibn Taymiyyah wuxuu leeyahay هذه الثورات الإسلامية كعضوننا الإسلامي أو فرح بدن أو ولقود عالم إسلامي كدعي جري ولقود وح خير مكينو له كتاب كيسوينو كله في التاوى وح خير ولقود مكينو له إلا وحي كينو جرين منك ظالم كان إنه وح سيد ظلمي وزيادة جرين كان لظلمنا إنه وح زيادة جرين إلا سيد ظلميه خير كإل هاي وخيرا كوين أنا إن خير كلا قصيد تجو إيش اللي سيكون رصدهم مكينو جرتا حمل لقوم فايدة ولقود وحول مثال سوق هذانا حتى ده الصالحين هديه قامنا يقول له في دنيوينك سيدي في النادي عبد الله بن الزبير يوالك اسمه مسعود بن الزبير رضي الله عنه عن عبد الله ورحمة الله على مصعب يعني دقالك هو قامنا هيين علماء ويكله لحدام فدنا إني كنت المامان قارنا مؤرخين فدنا يراهن وسيدي ابن الأشعث إيو مختار إيو غير كودي فدنا اسكي يراهن قارنا ما دام السحابي جليل أو وحي يراهن يعني قتال عبد الله بن الزبير قال لي سقع عبر دقالك عبد الله بن الزبير لكن فعلا فدنا أيوة شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لي هاي حتى هذه الصالحين هو كان كيهن ضد صالحين ابن الزبير عبد الله وأكتين وحواي أبيه سجنادي كل لوجو بشاري وكجرا طبعا كمية الزبير بن العوام هو يدي سوأكتين وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ودكتين هجرين الدور كإقاط خير كذا وحتى آل أبو بكر اللي يرادا يغلط جناده لوجو بشاري ما دام النبي قصاد وقال يقول صفتين صلى الله وسلامه عليه قف خير بدن بقى هيد السجل لفتي سوى حاله إلى بشارة ضمني أي قبا إن جناده لوجو بشاريه ديق النبي صلى الله عليه وسلم مركو عبي أي رواية وحاجة النبي يقول الله صلى الله عليه وسلم مركو ديق مال لوجد إن كقري وقبس وسيو صعبي تدير بقى سكول عبي حقيقة يصدقي مال لوجد إن كقري ويري واقص النبي صلى الله عليه وسلم مركو سوي رواد عبد الصومان سوي رها إذا لن تمسك النار لكن ويل لك من الناس ويل للناس منك وكما قال صلى الله عليه وسلم مركو نار كتاوى ميس هذا ديق عبتي أيو يري مركو حواي أسأل لفتي السداسة وحال لوجو تريا إنه هذا خير بدنا طبعا لكن صحابي الجليل اللي يراه هذا خير بدنا وعبادة بدن لكن دقالك هو قامي سقوا خير دونا وهكذا شيء إن لقوا بابه عبد الله بن عمر أوجا نصيحة صحابة بدنا أوجا نصيحة سوادي دي أسجن ولا لقود لي ولا الكيس ولا لقود لي عيد الكيس ولا لا دبات بدنا دعضي إلى آخره ابن الأشعث نواتي حال لقى شيء كنا يهدنا الشيخ أو شاقي مركز دقال هذا صورنا قلك له على علي اللي يرادوا أو صالحين هايو علي بن مدلو الميس يقولون اساسو كلي تدال وقالين مدينه مرقب صدين وحبي سمايين wax laga faa'iido in Allah ahayn ma jirto magaxooda inta la qaado loo geejiray maas la geejiray waa xilliga dambe dawlad Abbasiya waaya Jaafar al-Mansur xilligiis eegana dhibaato badan ku dhacday dhibaato badan ummadda waa u sababeen idan khawaarijti ayaduna ka faa'iideysto awwal fitna ba iyagu aad uga horeeyay oo Sayyid Ali naga dileen radiyallahu anhu oo saxaabo badan laayeen oo dhibaato badan sameeyeen dad cibaado badan iyaguna oo aad u adag oo geesiyaal oo dagaal badan ay ahaayeen dawlad islaamiya rabnaale oo saxaabadii gaalaysiinaya oo taabiciintii gaalaysiinaya oo dhibaato badan sameynaya haddana wax khayr laga ma gaarin marka waxaan ku soo gabagabeynaa qodobkaana in diintan wax ku toosinayna la yiraahdo ee dadka la gaalaysiiyo sida khawaarijta ama aan la gaalaysiin la yiraahdo munkaran zuulinayna sidii maartay ibn al-Ash'ath iyo al-Zubayr iyo ayagu dadka ma gaalaysiineen ma ahayn takfiir ma ahayn ahlus sunna wal jamaa oo khaalis ay ahaayeen laakiin caadifo iyo diin jacayl gaarsiisay inay dawladda amawiyaan la dirayna intay yiraahdeen iyagana la laayay iyagana wax laayaan waxba laga ma faa'iidin albaabkan magac diineedo dagaalada lagu sameeynaayana asagana walaxan fidna iyo dhibaato burbur weligiis ma keenin
weligiis lagama dhaxlin xataa haddii saalixiinta saxaabada iyo taabiciinta hogaaminayaan qaybta saddexaadna waxaa waaye dad xukun doon ah oo siraac siyaasiya iyo mansab ku dagaalama oo fidnooyinka ka mid ahaa jira sida hadda sheekhu faahfaahinaya oo koox koox u kala baxa ama qabiil shaati qabiil ha loo geliyay sida Soomaaliya ku dhacday 1990kii fitna ay ahayd dagaalada qabaa'ilka dad badan baa la barakiciyay guryo islaameeda xaaraan lagu degay dad xataa cirdiya wax la gaarsiiyay waxa soo dhan waxay aaday siraac qabali waa fitan waay sida hadda caalam islaami meelo badan ka jirtay weligeedna ka jirtay marka saddexdaas qaybood oo qaybo ay tahay bagac diineed oo dhibaato badan u horseeda ummadda in la isku laayo oo mid ay tahay khaarijka in laga soo farageliyo oo magac kale inta loo bixiyo ummadda la isku halakeeyo oo qayb ay tahay in siraac kursiga lagu dagaalamo oo kooxba koox iyo istiraado meesha ka dhaxlo ka qaata shalay Sheekh Maxamed Xalawatu Sheekh Maxamed aad u faahfaahinayay dhibaatada ay keeni karto haddana asbaabaha fidnada ugu waaweyn ee kamid ah waa maqlayseen waydiiqa bacdakum shay'an يعني بأس ويذيق بعضكم بأس بعض يعني قار لنسيه مارتي لو كلا قيبيه كوح ومدي وهذا لو مدة لو امتحان مركز سدح داس قيبات سيدين لو بحي كرا سدح قضوا كلام كسو أرورنا يا أيضا مركز لا أخريه هذه سيرة الصحابة التابعين إلى الأخريه وحي حوق صار جيران شيخ محمد أدو فاهي سدح قضوا واوين قضبك كوبا ضوحوا أها دولة الدحي أو أمد كالدحيسة in la xoojiyo oo la adkeeyo haddaysan jirin dawlad dhexana dawladda dhexe la keeno oo ay daruuri tahay oo aan ummadda marna lagu dayin karin bayla inay ahaato oo dawladaan ay ahaato arrintaas arrin khatar waay li'annahu mujtamacaan meel dhexe xukun dhexe oo dawladda aan lahayn waa dhumaya mujtamacaasu maba jiraya waa burburaya waana midda keentay in nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam oo khayru khalqi illahi ood ogtihiin ilaahay markii uu oofsaday إن دولة الإسلام كأمير خليفة المسلمين وخليفة رسول الله سيدنا أبو بكر رضي الله عنه إن للبا يعيدوا ولي النبي عن الآسنة وبنانك يالله ولي يعني جسمان كيس الشريف كبنانك يالله وحان لو آسن النبي أهمية أي لا هذا هي إن أمد لما ذي كلمة ذي قارنوا وحين ليه حكمة كوجرتيو النبي صلى الله عليه وسلم ما دام يعني حنون كي جريديس الصحابة وكوة الجري أنت ولي بنانك يالله يعني دد بدنا لقى بقى حتى إنه يستووا فكران أي حشونا أي بقى أيو هذا حنون كاساب الله وضع حنون سنة أي مركا سياس درادي ذا ملف كله جب سياسي قاعد إلى غير ذلك أقوال بدني علوم الله لكن وح محل شاهدكم حواي أمام مقصودكم إن دولة اللي دجيو الدولة اللي هلو هذا يجرتنا إن أيد اللي حوجيو لا سقوا ولا تجو قضبك كوبات أو في دنوين كالباب كود الجحر جريوه حتى هذه الدولة ده دولة غلطان أي تاي أو دولة يعني تيلر ربع أي سنة أهين أو خلطات بدنا أي لا ده هاي علماء الإسلام كولي قول واحد له جيران فدنا كعرض وإن الحوجية أو أن لوكحين أو أن رد قالمين أو يدا لتوتوسيا وعن مثال أسوق هذا ذكرنا عبد الملك حجاجي وابس كعدي ينبا لكن قال هذا السؤال ننك اللي يرادو مأمون يكون ولا له سو قارن في عنا قارن حماية أو أسوق فكرة هاي وحي كان إنه منك ودول العباسية وحي كان بدعاء خطرة أو قال نماء أو اللي يرى خلق القرآن أو إن من متكلمين أو فلاسفة أو مجرمين أو معتزلة يوديبين يرهن عقيدة المسلمين تو قرآن كإله إنه مخلوق يهي يكوكل أفكار فربضن يصفات كإله ولا إنكرها يوحبضن عدم لقوا ذلك الدين تإله كمية عقيدة يرهن دتك لقوا فرضية لقوا خصبة علماء الإسلام أئمة أمثال الإسلامية جوكتور لما أنت سؤال وشا عامل امتحان سنة اللي يرادوا أعوام الامتحان وامتحان هذا فتنة هذا وفتنة قدرا كمية هذا أئمة وحال قرآن كإلهي معك كامي سنته ومخلوق كي يراد حرقة لقسيد دينيا قرآن كوا مخلوق اللي يرادن وقال نمواي كفر الصريح واي علماء السلف كوحي يذكروا عسيين قفك عقيدة كلامك إلهي أو صفة من صفات الله إنه مخلوق ياي دينته كبحي وقالوا بيا مسألة متأول المياه إيو حجد من كوغ أنت إيو ما الله حين ياي مسألة كلواي لكن أصل أهان هو كفري كنت عقيدتك وعضها مركا كفر قاس عد أي دتك كخصبة أيين علماء قاروا الله قاروا تأويل سدينو تورية تأويل ما هو تورية ستن ننكم إذا علماء أنت الله سواق بتاعه يري قرآن كلاه مخلوق مياه مركز سوري التوراة والإنجيل والزبور والقرآن هذه الأربعة مخلوقة هذه الأربعة مخلوقة أفرت كتاب إنه يري الله قاطي أسوون أفرت إذا فرضان ولا جدوا يرمقله ويدي حتى الشيخ هذا تاي حدو تري له أفرت كتاب مخلوق سوري هذه الأربعة يري مركز اسمه إشارة فريق كل عيون كتبت كل الميل وهم موقع كتب فريق هذول مركز إشارة هالكاسان ولا جدوا يري راسه سكحي لده وكيف كذا
لكن إمامك وينايو جبل كآي أحمد بن حنبل رضي الله رحمة الله عليه إمام أهل السنة والجماعة اللي مقع حتى كوقع تلقب كاس من كبار أئمة الحديث كمذا الشيخ البخاري ومسلم وذو التقانين أيا وحو يري وح توريائية وح مقعيسية حيلة ديس مقلنا كتابك إلهي كلام الله يوير مخلوقنا معها ولا حري ولا قراعي ولا دبي إلى أمير كتقو إلى لدحي ولا قراعه ما اللي سجحوا ولا لا دي وح كستال قسمي ولا نوحي إمام كاس فرتك ليها دوتاجو وحواي الشيخ أمال كأنه كلا توحيل كان جوجو الله بركة يعني مع فرق وين طبعا أوجرو هذا إمام كاس فكتي لكن زمن كاس وحيل أحمد بن حنبل كذا لا هذا سكجر مركا ما أنت هذا الشيخ عمر الشيخ محمد هذا فرت تاجو شنت قارض الدنك واحد جوجو الصحوة الإسلامية علماء طلاب العلم أخيار بدن فرتي ولا تاجين فرتي لا تاجين يقولون مركا سيدا سوى هاي إمام أحمد بن حنبل هدويرا كليا هذا مبتدع ضال هلا تورو حتى شن ساعة جوجما واقاس علماء لا قدم بيه أئمة لا قدم بيه مركز أنت لو تقال يري مسكتورنا هلا يري أخشى الفتنة أو يري ومغليز يا شيخ أخشى الفتنة فتنة كبقى عين دعوة يري والله سلينا يا نين كانوا هو وهستا أيضا وهستا اسكتك مين تلي اسكتك تجي ما وسوي جسها وهو قراعك أو قراعة سجنا هي طلابتنا الله أكبر إلي يقولون إمامك أرديس يقولون وقراعة يا ومضي يا رق يا هاد اسكتك وصل ولا يسكول أنا يا ومن دمانتنا يستأنق مركب فتنة كبقى هو ريان لتابنن قرآنكم إلهي هو مخلوق دولته وقاميه وحي سيسكدل ضل منكر كيس هوته أسوون حق وكؤت كاستي وديد أنه تنازله إن حكم لا تورنا وديدي لماذا؟ لأن الدولة لماذا لا إله لنا إياها قصوين بدن أو كلنا واجرين اللي وليد إن عبد الملك وحو سميجر هدي لك شيء عاول دمي ماي مرة وقت أنا كقاضي إلى أنتو خمر كل رجوا صلاة إمام تسكدوا أو صلاة الصبح أفرق عيس كدو شجرة دورة بي اللي حرق عيه ومدنا وكده بدو كي قفتك بعد أن هذا ودي لك لقم بحكر ولا دبتها جاية ولحم فساد يا منكرات يا ولح بدن وليد بن عقبة وليد بن عقبة خير الله كثير وليد بن عقبة مركا منكر فربضان نوع عساجر مع ذلك وحي إلى لجل علماء إن سفكاس الدولة النملاس وحاس جودو سكعرا إلا داوعه أو فينا الدحقلية لأنه حرقي قوسنا يستوي لقى الناس نغميسو مركا حلقة كوباد وحواي إن دولة النملا لا إلاليو أو إذا كيان كاس أو النقضة وحلا ما تابتانا مع هاي الحرقة سكاس كحراي ومدة لبو دولة داس إن هات الدولة إلهي كبقي سو دينة إلهي كحكومة يصدلك دولة هديسن دينة إلهي كرقمين خير ملأ إلهي نواف الجماية من كالمينايو فتنة كبيح ميسو ومد إني فتنة كسر تأسكلافه فتنة عصب إليه كل لابنا يسابه هرمرنا ومد مقارسي كرتو وحيابها أنك الصومالي هدانا إلى هذا حل أن لا أنا لباتنا 6 سنوات أن جوجنا 6 طبعا كمية الدولة ذا السعودية ساي تنهض وحنا ولينا مدحوين أفراد 100 هذا جوجا مروا البد ومدة سكرينا دبه شيسينا سمينا لكن ما شيء أرنتو أي كهلاقي لهذا أو كاسم لهذا هل تور حق الله في رمايو وعجيب توغل حتى ملع سمايو ورقضاء وحل قوق القرآن كليه كتابك الله ينكو رغمينا ومدوا إسلام دينة إسلام كان لقو رغما لكن إن براتك أنت الله قو رغما وعلماء اللو ييرو دينة إسلام كوحواي وحال قو رغما ومنهج قرآن واي دينته حالنا الشيخ محضريس وقيمة بدن له وإن لقو رغما كتابك إلهي مركز كو رغمت إله نسل سود الجناية نبي محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة دي ستابعين أنه حن كده حنا ميراث كان وقرآن كي سنة دواي دستور كأسوق كل حجرة مركز إن أنت علماء اللو ييرو رجع علماء عالمين اللو ييرو لا يراد الدستور كان هرت متك قرن أو نظام كان إجراءاتك أو قابك الدولة الله لسه يصير وحلو دورنا شروط الله سمينا عيدا كأي وحاس واحد إجراءات الرماس دارجة لكن مبادئ اللي قدامها هي قواعد تشريع هي الرماها أساس الإسلام كوا إن علماء علامين تلو يرو يقان أو الدستور كلا سوقاته أو القسم إعادة النظر أما دب الله فيريو قضاء إسلامية هي دعوة إسلامية هي جيش كقابك الله لسه عيدا مدة إسلامية oo askariga darooga aan loo ogoleyn oo aan khamri loo ogoleyn oo aan sigaar loo ogoleyn oo jaad loo ogoleyn oo isbaaro loo ogoleyn oo taariikh salaadnimo aan loo ogoleyn oo askar saalixiina oo wax dhisaysa dawladda waxa waajib ku ah madaxweynaha iyo inta la shaqeysa inay jeeshka iyo shurdada ay ka dhigaan saalixiin culimadu hore waxay dhihi jireen askariga aan saalix ahayn markii amniga loo diro مثلا كسمين اللي يرادو حاميها حراميها مثل كاس قديم واي حاميها كان إلى لنا يا حراميها كي لقى إلى لنا يا أسوق حرامي بقى مركز دوسنا يسكروا حامي أهين أو سن صالح أهين حول عليك الهرت أسوق بقى إلى لنا أسوق الله نقبحيه الله نقى إلى واي أسوق هذا جدد خناعي سمو قال كيس مركز أوجه الرئيس هرت لقى الدوف سيء الدين تلا إنه قد ما أساسه عسكري الله درا يهوش إنه صالح يا واي كو قرصار كإنه إنه إسلامي
oo ninka ugu sareeya maxkamadda sare uu yahay nin saalixa oo ummaddu meel kasta joogta ay ogtahay in fulaan cindahu laa yudlam inaan lagu dulminayn agtiisa oo cadaaladda qaadaayo laakiin hadduu xoogo midig iyo bidix fiirahayo madax xoogahayo haddii loosoo galaba ma laga badbaadi maayo anugu hadda dad jooga hadda ma tuhmaayo iyo kuwa hore laakiin qawaacidda islaamkaan sheegaya waaya waqtigaa yar waa soo gebagabaynaa waa warkuna waa culus yahay xoogo waqtiguna waa yaryahay shiribna ma cawada shirib ma jiro cawada walax waaweyn oo kala laga hadlayo waxa waaye marka qodobka muhiimka marka wuxuu yahay in dawladdu ay si sariixa ay diinta islaamka inay ugu dhaqanto ay go'aansato waaye oo dadku iyo meel u wada jeestaan xariga ilaahay ku xirmaan qodobka saddexaad oo uga baxay waxa waaye oo ilaali jireen haddana sheekh doctor Cabdiraxiim oo staabtay sheekh Maxamed uga horeeyay xalay oo aayadda quraanka suuratul anfaal oo maqlaysin waa alaf bayna quluubihim soo xal u sharxay waxa waaye in ummadda quluubteeda meel loo wada jeediyo oo laga shaqeeyo dib u heshiisiinta oo dadka kalsooni la dhex geliyo oo inta la istaago dadka shala quluubtooda waa kala jeesato waa isdilaano waa isnaceene in la beero zarcu wa khalq ajwaa yani ajwaa thiqa bayna الشعب الصومالي in la ilaaliyo way oo dadka la isku xiro oo meel walba la tago oo lees oo gabdho lees oo gabdho lees jira waagi hore jaahiliga la joogi jiray xataa laba qabiil hadii diraan 100 gabdhood oo gudgudan inta la soo aruusha odayaasha iyo ugaasida laga bilaabi jiray asal islaafsan jira hadda toog la fiirima mawduucaas la fiirima waana lees laayay deegaan walba qoladii joogta waagi uu ku qaxday ama in laga qaxa iska joogta waagi mudmad waa safa fadhida qofta kale u gudbaysa ma jirto dawlad dhaxaa naga dhaxaysa leeyahay inta timaaday ayaan iyo joogto meel ordaan iska tagaya kuwa asaa ku cusub dan la jira banaanka laga jira waxaas wax tiri maaya waxa la rabaa dadka Soomaaliyeed iyagu inay dhaxdooda ka heshiiyaan oo is dhex socdaan oo dawladdu ay marxaladda hore oo dhan ay ka shaqeyso dadka inay is dhex mariso inay wada hadal siiso inay isjeclaadaan in qolo walba inta la soo qaado intaasoo 100 ama 1000 oo qoys maahan guryaha in loo baneeyo la dejiyo kuwan kale la qaado gobol kale la geeyo la is dhex maro wax la is dhaafsado markaas waxa iimaanaysa walaaltinimadii iyo isjaceylkii ay iimaanay ugu dambeyn waxa la iska ilaali jiray waxyaabaha dadka dila waxa kamid ah qulubta kala dila dadku inay siyaasaan inay isquursadaan inay nasabkooda wax ka sheegaan ilaa hadda dad nool jaahiligi al-arab qabla al-islam oo ay qabiil hebel reer hebel ma geeyaan iyo reer hebel nasab ma ahan iyo reer hebel waa nasab dhimani waxyaabo jaahili ah oo nabigu sallallahu alayhi wasallam wajigiisa waxa la mugo ugu carab badan waxay mugo ansaar dadku ay maartay iyo mugo jaahiliyadka la isku horwacdo waa labada maanta aan la noonahay waa ya reer hebel iyo anagu isma geeyno waa labadu nabigu u nacbay waa inuu maqlo sallallahu alayhi wasallam hatta marka qaarkood shirkiga markuu maqlaa la yiri labadaan uu ka carab badnaay marka waxa waaye shirkiga la meel joogaan waxaasan wali la nool hadda la nool waa maqasheen ninka yiri masaajidka ciyaarta ka dhaafa masaajidka ciyaarta ka dhaafa misalka la yiraahdo ma raba inaan faahfaahiyo marka waxa waaye waxaan idin ka rabaa inaan ilaahay ka baqno khuraafaadkana laga dhaxbaxo intan tawxiidka iyo arimahaas iyo salaaxa aan ka hadlayno oo dhinaca tawxiidka waxa barbar socda akhlaaq ijtimaaciya oo faasid ah oo aad u liidata oo mujtamaceen wali leeyahay islaamkana uu ku sheeganayo raal aad wada ku dheereeyay wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi doctor bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين runtii culumadii waa dhamaysay waxba liimahan beenino laa waqti walaa qodobo aan sheegaba meesha kuma harin jazaahum allahu khayran iyagaa wixii cilmiga naga dharjiyey waqtiga waa iska kooban yahay codsina waa ii yimid inaan aad u soo koobo asbaabta ama fitanka noocyada ay u qaybsamaan sheekh umal iyo sheekh cali baa ka sheekeeyey makhrajka iyo sida looga baxayana saddexda mashaa'ikh waxbay ka taabteen qodobada ayaan qayb ka taaban doonaa qaabka makhrajka waxaa ka mid ah in qur-aanka iyo sunnaha lagu dhago alictisaam bilkitaabi wasunna maxaa yeelay waa labadii uu nabiga ka tegay sal ly slam uu yidhi maa in tamasaktum bihima lan tadiluu bacdahuma abada haddaad ku dhegtaan labadaa waa qur-aanka iyo sunnada ma baadiyoobaysaan waana dardaarankii allah caza wajalla waactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu xariggaa ilaahay ku dhaga hana kala tegina oo ha ku kala tegina isagaas isku bahaysta gaashaanbuur iyo waa maxay ehel iyo waday iyo qaraabo intaba isaga isugu noqdo oo isku biirsada waxaa ka mid asbaabta istishaarat ahli ilcilm ayuu sheekh cabdiraxiim ka dhawaajiyey in culummada lala tashto waana arrin aad muhiim u ah runtii maxaa yeelay qur-aanka ayuu ku cad yahay wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa wamaa arsalnaa min qablika ilaa rijaalan nuuxii ilayhim fas'aluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun
waxaad weydiisaan dadka ahlu dikriga cilmiga u saaxiibka haddiinan idinka waxba garanaynin meelo badan buu qur-aanka lagu sheegay in ahlu cilmiga la weydiiyo ama la ateeco wa atiicu allaha wa atiicu rasuula wa uli lamri minkum markii ahlu tafsiirku ay sharxayeen waxay ku tilmaameen inay culummada ay yihiin aayaddii kale markii laga hadlayay badbaadada waman wayatabic gayra sabiili lmu'miniin ayaa lagu daray nuwallihi ma tawalla waman يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين قفكي ودد على قرب مري رسول كيسة إسلامركا ودد مؤمنين توا ودد أهل العلم محيا لأهل العلم وحل الربا مركا أي مشاكل جيران إن إيجا لولي مال هدو مشاكل كأمني ويهي هدي ويهي عبسي ويهي ولذلك وتي آيات أهيد وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم هدي أعلن لهايين مشاكل كي عبسيدا يا أمن لا أنت إيمانيا دتك أهل علمك هدي أعلن لهايين ويقرن لهايين دتك أهل علمك يا مخرج كي يسيد الله قبح يقرن لها ولذلك الصحابة منهج كذا وحوها إن أعليان وحين تصينا يا حديثك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري مركا والنبي كهل إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها قضى شيء واحد أركي دونتان iyo sadbursi iyo umuuro badan aad inkiri doontaan markaasi waxay weydiiyeen qaaluu famaa ta'muruna ya rasuul allah makhrajkiiba weydiinayeen maxaa yeelay isaga ayaa marjiciyada sharciga ee waqtigan loo laabanayay maxaad ina amraysaa markaasuu wuxuu ku jawaabay nabiga calayhi salaatu wasalaam adduu ilayhim xaqahum wasalu llaha xaqakum dadka madaxda ee dulmiga iyo jawrka iyo xaqdarrada iyo eexda samaynaya waxa ay idinku leeyihiin waajiba u guta oo idinka mas-uuliyaadka idin saaran ka soo baxa kan idinka maqanna xoog iyo ha ku raadinina iyo maxaa la yidhaahdaa sidii sadbursi kale alle u tala saarto aad aakhiraad helaysaan wasalu llaha xaqakum alle weydiista waxa idinka maqan waa ariiqa saxda ah walidalika xadiiskii kale xudayfa radia allahu canhu fi saxiix albukhaari isna marka uu weydiiyey fitanka markuu ka warramay oo uu yidhi kana annaasu yas'aluuna rasuula allahi sal slam can alkhayr wa kuntu as'aluhu can ashar dadku khayrkay weydiin jireen aniguna shartaan weydii jiray markaasuu markuu u sheegay noocyada kala gedisana khayray jira iyo sharta ka dambaynaysa iyo firaq badan inay soo bixi doonaan xudayfa wuxuu yidhi famaa ta'murunii ya rasuula allah sal slam in adrakanii dalik maxaad ii amraysaa hadday mashaakilka ay soo gaaraan markaasuu nabiga makhrajka u tilmaamay faactazil tilka alfiraq kullaha walow an tacuba calaa asli shajara aw kama qaala calayhi الsalaatu wasalaam firaqaasoo dhan ka dheerow walow duurka aad bagashido geed salkii aad qaniintido calayka bikhaasati nafsik bimacnaa ayaa laga wada walidalik imaamu albukhaari wuxuu ku soo arooriyey saxiix albukhaari gabay ay salafku ay jeclaan jireen inay soo qaataan u soo qaataan mihaal ahaan gabayga wuxuu ahaa alxarbu awalu ma takunu fatiya tascى biziinatiha likulli jahuuli xatى ida اshtacalat washaba diraamuha wallat cajuuza gayra dati xaliili shamطaءa yunkaru lownuha watagayarat makruhaة lishami wالtaqbiili salafku waxay jeclaan jireen gabayga inay soo qaataan oy soo deliishadaan maxaa yeelay gabayga wuxuu tilmaamayaa dagaalka marka ugu horeyso sidii waxaa lagu miithaaliyey gabar curdana ee bisil ee markaa indhaha oo dhan lala raacayo qurux badan isla markaasi quruxdeedu dadku way kadinaysaa iyo haybadda iyo waxa ka muuqda waa lala dhacaya bimacnaa horay baa laga gelaya dagaalka laakiin markii uu dagaalkii hurmo oo madaxa isla gala dhiiggii uu daato wallat cajuuzan gayra dati xaliili iyadoo duqowday ayay dib u jeysanaysaa oo waase shamtaa ciradii ayaa ku baxday tintii madoobeed iyo tintii caddeed baa isdhex gashay oo gabowgeedii iyo foolxumadeedii baa muuqanaya markaasay doorsoontay midabkii quruxda badnaa wejigii dhalaalsanaa dhuudhuubnaa shubnaa jirkii iyo xibnihii quruxda badnaa intii o dhan waa dabcayaan markaasi weliba waxay noqonaysaa bay ku tilmaameen makruhatan lishami waataqbiili mid dadku ay nacanayaan ama ay kahanayaan in la dhunkado ama la udugsado maxaa yeele gabdhaha yaryar waa nadiif weeye waa maxay aad baa loo jecelyaa dhunkashadooda iyo kaag dhawaanshahooda laakiin markay gabowdo waa maxay qofku waa maxay waxaa weeye sidii hore laguma ahaanayo wahaakada waxaa laga wadaa gabaygaasi culummadu awal shay markuu dagaalku dhaco ama fitanka iyo mashaakilku ay dhacaan iyagaa garanaya inay fitno tahay waxaan laakiin dadka kale laguma qancin karo halaaga umamka ku dhacaya iyo mashaakilka dhacaya umamka lagu samaynaya sababtu waa maxay lacallahum yarjicuun inay dadku soo laabtaan ku cibro qaataan faqsus ilqasasa lacallahum yatafakkaruun walidalika shaacirkii gabiy wuxuu yidhi iqra'u taariikha
id fiihi alcibar dalla qowmun laysa yadruuna ma alkhabar taariikhda akhriya maxaa yeelay waxaa baadiyoobay oo lumay cidda aan taariikhda akhrinin cidda aanan daraaso ka qaadanin cibra ka qaadanin wixii dhacayay 22 sano soomaaliya mashaakilkii dhacayay ee gudaha soomaaliya ilaa qurbaha nagu haleelay ilaa maanta haddaan ka maxaa la yidhaahdaa ka waantoomi la'nahay dad fiyowma nihin walidaalika waxaan u baahannahay ciyaadaadka nafsiga in naloo diro dad badan oo u malaynayna inay fiican yihiin wax xanuunsan yihiin xaqiiqatan waxaan la yaabay qisadaasaan kusoo gebagabaynaya insha allahu tacaala libiya oo hadda mashaakilkeedu uu curdan yahay oo cusub yahay bilow uu yahay ayaa wax 70 kun ku dhow oo dhalinyartii gashay dagaalkii looga hortegayay kacdoonkii qadaafi lagu ridayey ayaa waxaa loo ixaaliyay ama loo wareejiyey loo diray ciyaadaadka nafsiga isbitaalaadkan maskaxda dadkan problemka psychologiga uu haysto ayaa loo diray maxaa yeelay fatro yar ayay waxay ku jireen waxaynan hore u arki jireen oo madaafiica oo dagaala maxaad u malaynaysaan 22 sano soomaaliya dadkii ku dhex noolaa waan ka mid ka nahay oo weliba isla quman inay fiyow yihiin u malaynaya waxaan marka u malaynaya waxaa ka mid ah xuluusha war bal dadkan dib in loo baaro dib in maxaa la yidhaha cilaajaad qur'aani ah iyo mid kaloo nafsiya iyo mid kaloo khubaraa intii loo diro mashaakilkan waa dhammaan la'yahay bal dib aan isku jeegarayna nin walbana waa maxay ha isbaara hada wallahu aclam wasala allahu wasalam calaa nabiyina moxamed